nabiga calayhi salaatu wasalaam wafdi baa u yimi nin ashaj cabdilqays la yidhaahdaa uu la socdo ninka kan wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina fiika la khaslatayni yuxibuhum allah waxaad nin yow leeday laba dhaqan oo ilaahay jeceliyey laba dhaqan oo ilaahay jeceliyey wuxuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam riwaayaadku waa kala gedisan yihiin riwaayadda muslim waxay sheegaysaa alxilm waalanaah dulqaad iyo kaadsiinyo hubsiino waxaa tahay qof dulqaad badan oo dulqaadku qofku inaanu wax yari ihaara ku samayn inaanu kicin soomaalidu waa dad soodhaa inta badan waa dad uu aad ugu yar yahay dulqaadka iyo sabirku laakiin nebigu ninkan wuxuu ku ammaanaya inuu yahay qof deggan marka hore anaa leh deganaanshiye leh dulqaadna leh riwaayadda imaamu النasaa'i say sheegayso wuxuu ninkii weydiiyey shay-un jubiltu calayhi aw shay-un atakhallaqu ma wax ilaahay igu abuuray baa mise waa dhaqanaan kasbaday ma dhaqanaan yeeshay anigu iyo xirfad ku keenay baa mise waa wax ilaahay subxaanaه wa tacaala igu abuuray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa bal jubilta calayh maya labada tan adigu waa sajiya waa abiico ilaahay subxaanaه wa tacaala kugu abuuray idan qaybi baynu leenahay dhaqanka waa abuur oo waa ka ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya subxaanaه wa tacaala qaala inamaa ana rasuulu rabbiki liahaba laki ghulaaman zakiya ciise ilaahay markuu maryamo siinayey ugu bushaaraynayey malagii u yimi wuxuu leeyahay waxaa rabbaa isoo diray si aan kuugu hibeeyo ghulaaman zakiya ghulaan la tahiray wiil fadiilo oo dhan wata waxay culammadu yidhaahdaan min طabcihi bay ciise ka mid ahayd in sidana ilaahay u abuuray subxaanaه wa tacaala idan waxaynu leenahay akhlaaqiyaadka qaybi waa abuur oo dee waynu kala cadho badannay hebel qofna waxaa laga yaabaa inuu marka laba eray la yidhaahdaba kaco qofna inuu degan yahay oo uu dul qaato waa kala sabir badannay waa kala abuurkeenna hore laakiin haddana waxay leeyihin culammadu qofka bini aadamkaa inta la tababaro ayaa la gaadhsiin karaa inuu dulqaad yeesho inuu cadhadiisu degto inuu gacan furaado wax allaaliya waxaynu fadiilo u naqaano wanaag iyo dhaqan u naqaano qofka waa loo rabbayn karaa bay leeyihin haddii la rabbeeyo dee xayawaan baa la rabbeeya ama bini aadam baan la rabbayn karaynin xayawaankaa kaynta ordaya ayaa la qabtaayo inta la tababaro waxaad arki qaar shabeel tababartay ama libaax tababartay libaax iyo shabeel haddii la tababaray ma qof bini aadam oo nool baan la tababari karaynin markaa